السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليكم من أصحابتي الغالية سودة هذا مالك استوى كجوكتان دنيا دافيدا اسكسونا قد وناكسن الحمد لله جيجي ساك دريمين سين فرحة إفحفح اسمها الحمد لله رب العالمين انت هي سنة إلهي هسيو انت هي سطنة الله وزياديو muuqaal kan wuxuu si guud ku saabsan yahay dhiirigelin yar oo uu talagalay dadka jecel inay wax qabsadaan inaan ku dhiirigeliyo sidoo kale waxaa si gaar ah rabaa inaan uga hadlo challenge oo markii ugu horeysay inta YouTube-ka aan ku jiray aan nafsadeeda ku sameeyay oo aan ku guuleystay alxamdulillah isbuuci la soo dhaafay waxaa nafteeda la galay challenge ah 7 consecutive days in aan muuqaal soo dhigo YouTube-ka 7 maalmood oo isku xigta oo xiriir ah yawm walba inaan muuqaal soo dhigo aad ay igu adagtay ani ahaan marka u fiiriyo yani xaaladda aan ku suganahay shaqooyinka aan isku haa marka la fiiriyo way adagtay laakiin alxamdulillah waa ka soo baxay waana sameeyay muuqaalkii 7 waa muuqaalka hadda idin duubay muuqaalada aan soo dhigay hal idin soo saari doonaa shaashada sawiraantooda ama screenshot inaan ka soo qaado alxamdulillah taasna waxaa ku gaaray inuu ilaahay igu ilhaamiyay oo ilaahay igu toosiyay koow inaa aniga go'aansaday labo iyo inaa u dhabar adeegay inaa ka mira dhaliyo go'aankaygii iyo wixii aan aniga maxaa la yiraahdaa saxda aan saartay haddaba inta aan dhiirigelinta guud u gelin waxaa rabaa inaa qaabka muuqaal duubisteeda iyo muuqaal diyaarinteeda inaan wax yar ka dhaho horta ani muuqaal duubis markii la dhaho qof igu saacideeyay malahan muuqaalada anaa duubto aaday u adagtaa mismaha muuqaalada anaa duubto ku darso muuqaalada anaa edit garaysto muuqaal aa aragteen oo aa soo dhigay anaa edit garaysto muuqaaladii hore soo faa 4 years iyo 3 years ago ay kuwaas iska dhaaf laakiin kuwa hadda 2024 dhamaadkeedii wixii ka dambeeyay bilowday anaa edit garaysto waxa iigu waqti haddii la gelinayo muuqaal waxaan geliyey muuqaalka Alibaba ooga hadlayay muuqaalkaas kaligiis waxa iga galay miiga aaminaysiin 7 maalmood oo edit ah sidee markuu edit garayaa marka wax duuba waaba la gartaba duubista sidee wax uu edit garayaa meel allaala meesha jaanis yar aan ku helo muuqaalkii editkiisa waa sameeyaa tusaale jikada hadda ku jiro cunto aan karinaayo digsiga walaaqana editka muuqaalka waa sii wataa haddaa caruur wax kala siinaayo caruurta intay wax cunayaan muuqaalka editkiisa waa wataa haddaa inta baxo suuq aado oo shay ama alaab aan sugaayo qof aan meel ka sugaayo intaan sii faliyo muuqaalkayga waa sii edit garaysanaa yacni intaas waxaa diidayaa fursad iyo jaanis inaan u helo firaaqa iska fadhi meel oo anigana howl ay ii taalo maadaama go'aan adag maxaa la yidhaahdaa oo rasmi ah aan meel ka xariiqday soo marka taas waxay iga saacidaysay alxamdulillah waxay iga saacidaysay inaan 7 maalmood oo isku xigto 7 muuqaal oo YouTube channelkayga aan soo dhigo waa markii ugu horeysay oo aan sameeynayo alxamdulillah adinkana waxaan rajeynayaa inaa igu soo hambaliyan doontaan si ay dhiirigelin uga sii qaado marka laga hadlo arinta duubitaanka hadii dhidka idin kala hadlo soo maahan duubitaanka muuqaalada cunno kariska markii laga soo tago waxaa duubaa muuqaalada saan oo kale fadhiga markuu jawiga kala dago 4 saac 5 saac 6 saac 7 saac meelahaasaa duubaa asbaabaha aa u duubana waxay tahay xilligaas waxaa rabaa koow inaa si jawi degan ah muuqaaladeedu markaa hadda saan oo kale jawi degan aan ku jiro muuqaalkayga yani ereyada aan dhahay maskaxdeeda kasoo duxayaan laakiin marka xoogaa shanqar ay yeerayso ama aa ogtahay in shaqo lagaa sugaayo ama aa ogtahay qof inuu kula hadli rabo stable ma ahaanaysid arinta kuwaad waa taas arinta labaad waxay tahay microphone aniga ma haysti yani microphone waa keensaday laakiin microphone fasiix ah ma ahan oo codkaada fasiix ka dhigaya ma ahan that's why marka waxa igu qasbay inaan xiliyadan oo kaleeto jawiga uu degan yahay aaradsado intaas inaan isla fahanaa rajeynayaa waxaa intaas ii sii dheer marka inaan aniga muuqaalada keligay duubto inaan muuqaalada keligay edit garaysto maxaa la cod saaris hadee tahan anigu isugayaa soo maahan intaas waxaa ii dheer inaa howlihii gurigana ani aan haysto caruurta bay ahaan lahaayeen shaqooyinkii kale guriga bay ahaan lahaayeen aniga waxbarashadeedii guriga aniga isku barayay sida tafsiirka qur-aanka aa baranayay maxaa la yidhahdaa crochetka duntii cirbada aa baranayay maxaa la yidhahdaa waxyaabo kaleenta oo ani hadda inaan idiin sheega aanan rabin oo guriga aa ku barto ayaa jiro waxyaabahaas dhan anigoo wato haddana igamaysan hor istaagin inaa yacni aa isdhaho shaqadaanaa haysta kanaa haya kanaa jaanis muu heli karin marka
waxaan leeyahay arrinteeda dhiirigelinta guudaa la joogaaye gabar iyo wiil inta idaawanayso kumanaanka qofood oo idaawan doono waxaa aaminsanahay oona hubaa boqolaal qofood oo ka mid ah in waqti ayagoo heli karo aysan waxba ku qabsanin firaaqo mararka qaarkood marka aan sas u milicsado aan dhaho ilaahayow idinku hanuuni inaa wax ku qabsatiin firaaqadaas ay haysatiin maanta haddaan haysan lahay waxaan hadda aan samaysanayo ka badanaa samaysan lahay firaaqo aa isleeyahay yacni way jiraan dad saas oo firaaqooyinka noocaas oo kaleeta ay haysto oo haddana aan waxba uga faa'iidaysanin iska dhafraayo maalintii taleefon habeenkii taleefon yacni qof adiga facaa ee qof adigoo kaleeta eh shaqadiisoo wataa maanta dhan inaad la soo taagnaatid yaa challenge soo sameeyey yaa baranka lagu sameeyey heblaay iyo hebel maxay isdheheen yaa isguursaday yaa kala tagay hada ceeb yaa qeyb ugu yaraan xataa haddaada ka maarmin maalaa yacniga inaad daba wareegtid maarata oo aad daba socotid howlahaaga iyo danahaaga gaarka adigoo wato iska daba soco hadal xun miya ma aha hadal xun inaa adiga wax aa qabsatid wax aa iska keenkeeni kartid ma aha horta marka waa digriga ilaahay ku dadaal markaa ilaahay xustid oo istikfaarta salliga nebiga laa xawla walaa quwata illaa billaah maxaa la yidhahdaa adkaarihii kale aan maxaa la yidhahdaa idinla wadaagi iyo kuwo kaloo adinkaba aad taqaani markaad daa'imtid ilaahay waddada toosanuu kugu soo hanuuniyaa waddada toosanuu ku tusaayaa waddada dantaada eh hadafka aa leedahay adduunya hadaf inaa yeelatid oo ku tusaaya dantaada inaa ka shaqaysatid oo ku tusaaya wax walba dantaada ahayn markaas u fiirsid waxaa u malaysaa in sas lagaa dhahaayo waa kasoo jeesanaysaa intaasina isla fahanaa rajeynaya marka taas haddii dikriga ilaahi subxaana watacaala aad joogto ka dhigatid waxaa arkaysa adoo tartiib istoosinaayo sida daacada oo loo dhaho qofka markuu maxaa dikriga uu joogteeyo ama daacaba daacay u dhiibta qofka duu salaada aad u tukada waxaa arkaysa haddana isagoo soonka sunnooyinka ee soomaayo soonka sunnooyinka u soo maadana xaskarka isagoo sadaqaysanaya sadaqa iska baxsanaya cid ku qasabta ma lahan yani cid u sheegtana ma lahan isagoo saas sameynaya loo is arka saas isagoo sameynaya intay ka imaatay waa daacooyinka kaleente ama cibaadooyinka kaleente uu sameynayay kuwaana ay soo tabceen waa soo raaceen hadalka aa sheegaya dabcan inaa layga fahmayo waa rajeynaya kosof aada oo faraxsanahay alxamdulilah muuqaalkeeda waaba ahay inta muuqaal aad duubaya muuqaalkii iigu waqtiga badnaay duubis haddee tahay muuqaalkaas waxaan duubay 4 jeer 5 jeer soo malaynayo oo ay iga kala halaabeen macluumaadka aan kusoo gudbinayay waayo ani waxaan jeclahay markii macluumaad la iisoo gudbinayo nuxurka in la iiga sheego bas dadkii aan iskuulka la dhiga jirnay way i yaqaanaan dad ay daawanayaan dadka aan jaamacadda la dhiga jirnay way i yaqaanaan dadka kaleento oo aan dhaqan wadaagna way i yaqaanaan yacni wax mataatac iyo hadal tiro badan ma jiro because of muuqaalkaas waxaa ugu talagalay qof markuu daawanayo inuusan ku caajisin waayo 32 daqiiqo oo ah muuqaal igaga dhirir badanna ma soo dhigin youtube channelkayga 32 daqiiqo asagoo ah ayaa waxaa ku dadaalay nuxurka inaan soo koobo wuxuu ka koobnaay 3 qaybood qayb waxay ahayd anigoo fadhiyo oo sharxaya Alibaba waxa uu yahay maxaa la yidhaahdaa sheeg qaybaha uu kale waxyaabahaas e-commerce wax la dhahayo qaybta labaad waxay ahayd screen recorder shaashadan waxaan ka duubayay sida aan u apply garay sida aan u soo dhigsan karo aan u adeegsan karo aan u isticmaali karo midda saddexaad waxay ahayd qofka yacni muuqaal kaloo asagana cod gooni ah u soo saaray oo face aan ku jirin screen recorder way laakiin markaas facekayga kumuusan jirin codaa gooni u soo saaray asagana dabcan 7 maalmood oo iga qaatay muuqaalkaas alxamdulilah laakiin waa ku faa'iiday waayo asagoo hadda waxaa u malaynayaa 5 maalmood isagoo yaalo oo 2 kun kusii socdaa muuqaalkii ducooyinka aan soo gelinaya asagani 2 isbuuc asagoo joogay ayuu waxaa fiirsatay 4,000 uu maraayay marka muuqaalkan waxaa u malaysaa Alibaba inuu muuqaalkii hore uu ka saameyn badnaa aadaan idinkaga mahadcelinaya qof allaale qofkii daawaday like saaray sii share gareeyay comment ka soo baxsaday iyo qofkii daawaday oo waxbana aanan ku sameynin intaba aada ugu mahadcelinaya so waxaa idin leeyahay gabdho iyo wiilal kulamaa qofka uu firaaqo helo wax ma qabsadoo noqdaa kulamaa waqtiga qofka uu ku yaraadana waxtarkiisaa soo baxo hadalka si fiican u fiirsayaa kulamaa adi firaaqadaada ee badato wax ma qabsadaa noqonaysaa firaaqada iska ilaali ismashquuli haddaad wax baranin oo shaqo aadan aadin oo waxba aadan qabsanin isku day almiini in adi wax abuuratid taleefon ma haysatidoo internet ma haysatidoo wax ma bari kari iyo wax ma aqaani iyo shaqo ma haysti iyo waxaan ku shaqaysta ma aqaani caqli maba galaayo gabar haddaa tahay xirfadaa jiro lagu shaqaysto oo adoo gurigaaga joogo aad baran karto oo aanan kaaga baahnayn iskuulna u gashid cilaan saara ka mid ah make up hadii dhow wuxuu kaaga baahan yahay qalabka make up uu iska culus yahay laakiin cilaanka waxaa u malaynaa $1 waxaa soo kaleetaa lasoo qaada kartaa kadib waa lagu bartaa ama haddii kaleeta kareemada lagu bartaa markuu ugu horeysa cilaan la baranaa waxaa baran kartaa crochetka boorsada dunta iyo gacanta lagu barto
haddaadan heli karin wax un aad timo dabitaanka baro timaha sida loo dabo lacag kaagama baahno koronto kaagama baahno barasho gooni kaagama baahno timaha inaad dabtid baro ada isku baro qof waa ku shaqaysan kartaa timo dabitaan kaligood waxaa la qaataa $5 $3 $4 la qaataa يعني waxba yay ku xadidin wiilaa tahay waxaa leedahay ani shaqo beenaa ka keena ma lahan hebel waxaa hadda aad loogu maxaa loogu daba dhicay edit gareys editka baro taleefon haysatid ahaa edit gareys editka baro editka ku shaqayso marka nolosha meel ay kaa soo celinayso ma lahane adi caqabada isku noqon waxa intaada bilaabin ka hor haddaad tidhaahdid maxaa waaye waxaas ma qaban karin shaygaasaan qabanaa ha maya ma awoodi haw aa u dhehaysaa ma awoodi horta wixii maba aadan dhex galin horta wax markaa dhex gashid caqabada goorma imaataa wixii waan bilaabay markaan bilaaban wixii wadi waayey laakiin wixii ma bilaabin laakiinse caqabadaa i hortaagan caqabad ma la dhaha kaasi adaa caqabad isku wax aadan samayn karin ilaahayna bari ilaahay tala saaro dhulkana iska qaadno 2025 la joogaa inaan dhahno shaqo ma haysano gabaraa ahay shaqo ma haysti wiila ahay shaqo ma haysti waxaan wax barasho ma haysti maba dhici kartaba internetkana ilaahay xoriyad kuu siiyey internetkaaga daawo internetkaaga ku mashquulsanow laakiin danahaaga raaco tartiib adaa ugu go'i doono inta qof facaa ee asaas u hanqaltaagi lahayd adi isku day in lagu hanqaltaago oo lagu fiirsado haddaadan jeclayn soo maahan inaad yani content creator aa noqotid ama social media aa soo gashid xirfad gacan baro haddaa aqoon kale leedahay aqoontaas kale ku shaqayso dabcan waxba yay kusoo celinaan ka wadaa oo aad idinkaga mahad celinayaa challenge-ga nafteeda aan la galayna waa ku guuleystay alxamdulilah muuqaalkana muuqaalka toddobaad waaye hadda idin soo sheegay dabcan muuqaalo kaleeto aad u xiiso badan waa idin soo wadaa ramadaana soo dhow ramadan recipesna waa idin soo wadaa insha allah wiilal badan way igu xiran yihiin waa arkay oo maxaa la yidhahdaa si qaasana ila soo hadlay inaan soo geliyo waxyaabaha oo yani wiilasha aan reeraha lahayn oo kaleeto ay samaysan karaan ama single boys marka kulli waa idin soo wadaa waxaa idin leeyahay muuqaalka intaasaa ku ekeenaya so daal aad u badana iga muuqdo waayo juhdi badanaa ku jiray muuqaal mid intaa ku kulmi doono waa walaashin Zakiya Aadam oo idin la amaano allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.